kulan wacan dhagaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wadaagga oo ay idiin soo diyaariso dalladda Sooma oo ah dallad ay ku midaysan yihiin idaacadaha Soomaaliya ka howlgala marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada Somaliland. Barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbinayaa warbixino bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaalada adiga meel ka baxsanba. Anigoo Axmed Tifo ayaa barnaamijkan soo jeedinaya. barnaamijkeenan toddobaadkanna waxaan ku eegi doonaa iskuul si gaar ah ay wax uga baranayaan macallimiinna ay ka yihiin dad qaba baahiyo gaar ah oo laga hirgeliyey Baydhabo. Arday ay waxbarashada uga joogsatay kadib markii ay dhammaadeen xoolihii reerkoodu uu ku tiirsanaa iyo waraysi aan idinkaga hayno haweeneyda ah oo isku diyaarinaysa in ay waxbarashada jaamacadda bilowdo kadib markii sanad dugsiyeedkan ay dhammaysay dugsiga sare. aan ku bilownay arday wax ka baran jiray jaamacadaha iyo iskuulada ku yaala Muqdisho ay ka joogsatay waxbarashadooda kadib markii ay istaagtay caawimaadii ay ka heli jireen waalidkood oo ku nool miyiga. Arrintan ayaa sabab u ah abaaraha ka jira meelo ka mid ah dalka oo galaafatay beerihii iyo xoolihii oo ahaa isha dhaqaale kaliya oo ay ku tiirsanaayeen qoysaska ardaydan ay waxbarashadooda ka istaagtay. Shukri Caabi oo Muqdisho joogta ayaa soo jeedinaysa warbixin ka hadlaysa. qaar ka mid ah dhalinyarada wax ka barata iskuulada iyo jaamacadaha Muqdisho ayaa xilligan wajahaya saameyn ay abaarta ka dhacday dalka ku yeelatay mustaqbalkooda waxbarashada. Nasteexa Cali Iidow oo ka mid ah ardayda waxbarashadooda joojiyay kadib markii ay saameyn ku yeelatay abaaraha dalka ka jira gaar ahaan gobolka ay ka timid ee Jubbada Dhexe. Waxay Sooma u sheegtay intay sanimaan Muqdisho inay ku nooleed tuulada Jawaarey oo hoos timaada degmada Saakow ee gobolka Jubbada Dhexe halka oo ay ku soo nooleyd ilaa 10 jirkeedii ka hor inta uusan waalidkeed go'aansan in waxbarasho ugu soo diro Muqdisho 2014 kuna noolaato guri ay joogaan dad ay qaraabo yihiin oo degan xaafada Barmuuda ee degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir. Nasteexo oo muddo 7 bilood ah ka maqan iskuulka Al-Aqsa oo ay dhiganaysa ayaa noqon lahayd fasalka 7 balse nasiib darro ma aysan dhicin maadaama ay ka hartay safarkeedii waxbarashada. Qoyska Nasteexo oo beer weyn ku lahaa tuulada Jawaarey ayaa gabi ahaanba baabaaday kadib roob la'aantii dhacday. Waalidkeedna ay u sheegeen in beertii ay ka soo saari jireen qarashaadka waxbarashadeeda iyo nolosha qoyskeeda oo ka kooban 6 ruux ay saameyn weyn ku yeelatay abaarta, laakiin ay rajeynayso inay dib u bilowdo waxbarashadeedii haddii ay hesho caawinaad. waxaan noolahay aabahey gabadhii wax isku yihiin qaraabo koraado iyo diiwaadan $20 abal $30 liisoo diri jiray iskuulka qaar ka bixi jiray qaarna anaa isticmaali jiray. hadda si markii ay beerihii ee abaar ku dhacday markii 30 20 la iga dhigay 20 saa u dhiganay 20 bawaabay beerihii dhan abaar noqdeen waxa la cunaaba familkii ay waayeenba. Cabdullaahi Axmed Khaliif waxa uu hadda marayaa sanadkii 2 ee jaamacadda oo uu ka barto kuliyadda beeraha. waxa uu sheegay in ka hor inta uusan bilaabin jaamacadda muddo 3 sano ah uu shaqaynayay maadaama qoyskiisa oo ku nool duleedka degmada Luuqganaane ee gobolka Gado ay xoolihii ay dhaqan jireen abaartu ka laysay. sidoo kalena qaar ka mid ah walaalihiisa loo soo diray Muqdisho si ay ula noolaadaan, taasna ay ku qasabtay inuu raadiyo shaqo kale oo uu ka helo qarash uu ku dabaro nolosha iyo waxbarashada walaalihiisa oo 2 ka mid ah ay dhigtaan iskuulka Howlwadaag oo ay dowladdu maamusho. Cabdullaahi ayaa Sooma u sheegay in hadda uu 2 galin ee maalintii uu ka shaqeeyo maqaaxi uu kabalyeeri ka yahay iyo shirkad uu waardiye ka yahay, kuwa oo lacagihii uu ka helo uu ku maareeyo noloshiisa iyo tan walaalihiis. ahayaan qoyskii xoolo dhaqato xoolana ha kala abaarta marna xoolaha weertay liina lisfir jiray marna caanahooda li iibinaya marna ruuxooda waxbarashada sidbarayaan iskuulka. alxamdulillah waxa in badan shaqo raadinayay shaqo waardiye haddana waxa ilaahay maadiis sanadka 2 jaamacadda ku jira iskuulka waxa dhimay 3 sano ka hor. gaabkan waxa uu yimid aan u wadahay jaamacadda qoyskeen waxa in ka oo iga bixi waayay lacagta jaamacadda waxbarashada. waxaa jira dhalinyaro kale oo qoysaskoodii ay saameysay abaarta ba'an
ee dalka ka jirta kadibna uu culays ku noqday helitaanka qarashaadkii waxbarashada. Cumar Xaaji Ismaaciil waxa uu ka mid yahay ardayda sanadkii 2020-2021 dhameeyay dugsiga sare ee Al-Furqaan ee Muqdisho. Waxa uu ku rajo weynaa inuu jaamacad bilaabo marka uu dhameeyo iskuulka, balse waxa uu sheegay inay taasi u suurtagelin kadib markii waalidkiisa ay ku wargeliyeen inaysan awoodin bixinta qarashaadka jaamacadda maadaama xoolihii qoyska ay ku tiirsanaayeen ay abaartu laysay. Waxa uu tilmaamay in hadda qoyskiisu ay isaga ka doonayaan inuu u shaqeeyo si uu u kaabo nolosha reerkiisa oo aanay jirin cid ay ku tiirsan yihiin maadaama aabihiis uu ku dhintay dagaal beeleedyo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Galgaduud 2012. Cumar Xaaji ayaa Soomo u sheegay in kadib markii ay soo wajahday caqabadaasi uu go'aansaday inuu barto sida loo wado bajaajka muddo 4 bil ah oo saaxiibadiis ay ka caawinayeen barashadeeda. Haddana uu ku shaqeysto mooto kira ah oo maalintii uu ka helo lacag u dhaxaysa $20 ilaa $30, halkaas oo hadda uu ka dabaro nolosha qoyskiisa. Waxa uu hadda rajo weyn ka qabaa inuu helo shaqo midaan ka wanaagsan si uu u sii caawiyo hooyadiis iyo walaaladiis ka yaryar oo 5 ka mid ah ay gaareen da'da waxbarashada. imtixaan dowladda oo ku baasay hadda waxa ay bajaajaha ka shaqaystaa maalintii 50 ilaa 60 marmarka qaarna waa iska waanaya marmarka qaarna waa helay. waxaa jaamacadda u dhiga waayay dhibaato oo dhinaca familka ah. lacagta iskoolka waxa iga dhiibi jiray adeerkay Galgaduud ku nool oo xoolo dhaqato iska ah. haddana xoolihii waa ka baaba'een oo abaarahan jira xoolihii saameeyeen, woona awoodi waayay inuu iga bixiyo iskoolka iga soo bixiyay, jaamacadna inuu iga bixiyo waa awoodi waayay. inkastoo abaarahaas ay saameeyeen anaa reerka u weyn reerka nolol maalmeedkoodna anaa soo shaqeeyo maadaama aabiya naga dhintay booska aabbahan anaa buuxiyey. way mahadsan tahay wariyeena Shukri Caabi oo warbixintaas nala socodsiinaysay. dhinaca kalena waxaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay laga hirgeliyay iskuul si gaar ah ay wax uga baranayaan ku dhawaad 500 oo arday oo qabta baahiyo gaar ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho, iyada oo iskuulkan uu ku siman yahay ilaa dugsiga dhexe. waa midkii ugu horeeyay ee nuuciisa ah ee Baydhabo laga hirgeliyo, iyadoo ardayda baahiyaha gaarka ah qabta ay ku dhibanaayeen markii hore in ay goobaha waxbarashada ka helaan fursadaha ay uga baahan yihiin. Saciid Sabriyo ku sugan Baydhabo ayaa ka soo diyaariyay warbixintan. 500 qofood oo iska jira ciyaal iyo dadweyn oo dhamaantii dadka baahiyaha gaarka ah qaba oo ka nool magaalada Baydhabo ee gobolka Baay iyo ku faa'iideysadahaya walbarasho usoo talagalay ururka naafada magaalada in nololiyo ka hormaryan kaas oo iskuul hoose dhexe. Fawziya Nuur Cali oo 18 jir luga naafo ku iyo markii koreyti wayba fursadan helay in waliyo ku barata iskuulka Baydhabo disability walaado korey walba ma barada jarna wayba yahaaytay qof guriga iskrooga wayba eedanka faraxsanta in walbarashada gaarka ay hela walbadan iyo ku bedel hab nololeedke iyo agnola sida in ya awooda qorowka walyaabo aas-aasiga sida xisaabta iyo maadooyin kale. wayba sidoo kale rajayahaaytay in iskuulkan ya hadda ku eta fasalka 4 guul bilow aan in ya mustaqbalka meel eedan fayl ku deerta walbarashada. Fawziya oo qoyska dadan yar waana degan kaamka Al-Aamin ee duleedka magaalada Baydhabo iyo hiraab walba wayba surmaasay banaanka xirada si aan rata baabuur leeya iskuulka olanka talagalay in uu shaqada haddana haknaga gurusho. wayba qaaddaase maadooyin aan iska jira saynis, xisaab, ingiriis iyo Soomaali, iyadoo oo rajada weyn iyo ku qabta eta in isla iskuulkan macallimiinka noqota si aan ku faa'iideyta dadka yeelamada. Kulkan wayba dhigadaay halsin wayba sharud may hirn markaan baaya gaarka oo liyaar gelo ogolaaday baka baradaay maadooyinka iskuulida nidaamiga la barado yali bare kooti hadoo wala isku kay bedel ko walba ma kasaan alfahama abatajat naat ma kasaan hadda bataja baradi wal kasta baradi walindir jawaabe wal kasta meel qoran akhri kor ilaahay ma hadle dadka oo baaya qaarka oo may lahaan intiyo
iskuulka haka beeran oo kooyan oo walka baradan saan walanka barad yoonanka baradan oo ilaahanka mahadnaqa ardayda walbarashada gaarka ku faa'iideysadahaya yaway baan badana haano hindho naafo ku dhago naafo ku way bana qayb kasta ku tirsan ardaydan walbaraya macallimiin angaare maxamed deeq isaaq ibraahim waa tumiyo koojar hindho naafo ku wayba uswal ku baraday iskuulka hoose dhexe ee Baydhaba disability isuga oo dhigado fasalka angaarka indhooliyaasha wayba iskuulkan ha ka biiray sanad ka hor wayba eedan ka faraxsanya inuu hadda walbarada kora isuga oo hiraabti hor harhaw baawarta qaadasa ciyaalka naafada wayba sheegay in wal dhibaato uusan ka qabna fahamka macallimiinta asharada biyow laakiin wayba obso ka muujay meel higa doonta safar shi walbarasho maadaama iskuulkan hadduu ka ekiya dugsiga dhexe maxamed deeq wayba rajayahay in meel eedan faylo ku deera walbarashada si mustaqbalka qayban ku noqda dadka bulshada wala ka kordhiyo hogaankana qobada way ka baraday maadooyinka Ingiriis iyo tarbiya Soomaali xisaab iyo Arabi iskuulaad kala meesheedu ay baahiya gaar ah yoon idiidan saasay iskuulka Baydhabo disability koy madaanta koy wal makasaan hooban koy wal qoro iyo baradi hoon iskoolka leeyahay faday antiyaan iskool dhiko maalin nagado waalidiintay walantar inta dadka baahiya gaar qaban walan iskuulkan wayba aasaasay dhalinyaro ka kooban 7 qof oo iska jara migal iyo bilaan hanaas oo dhamaantii qaba baahiyaha gaarka iyadoo ardayda dhigadaas iskuulkan 700 oo kamida yihiin gabdho meel 150 kalena wiilal yihiin sida uu Soomaan sheegay Ciise Cabdi Salaad oo maamulaha Baydhaba disability wayba sheegay in ujeedada iskuulkan loo furi si aan dhaafna fursadaha walbarasho dadka qaba baahiyaha gaarka isla markaasina uu ka eegay ilaa fasalka 6 wayba tilmaamay in macallimiinta ayeen haano qaba baahiyaha gaarka oo iska jara migal iyo bilaan balse uu jara culays eedan hoogan oo hafood saari maamul ahaan maadaama sa injarna hay'ad goone oo gacanta ka haytay iskuulkan Ciise Cabdi wayba sheegay xaalad mashaar yare oo eedan hooseyta oo ka shaqeeyaan macallimiinta iskuulka taas oo biyayaan waalidiinta ardayda qoyskina loo qaado $10 maadaama ay dhigi karto in walbarashada roogsata hadii la waayo macallimiinta mashaariyo ka shaqeeyaan iskuulka runtii mandalo furay aqabadooyin badan mas'uul badan la kulmay jargeel furay wali toogna antuun lama diran ka furni oo wali xaafad salaami iskiyaali geekina alxamdulillah adib aragayta iskuulka horta sababtoo furni may buu anoo la kaashado dhalinyar badan magaalada ka nool odayaal oo wali biyoon naafe wali baayaa gaarka qabo awlaadiyo dhalin naafada idarowan awlaadaysadii banaanka laakiin biifadi wala ka barafadi oo geeka la tartamaana gobole kala maswadame kala ma aragaani geeki intii qof naafe qof kala garab qabado qof naafe qof kala idin lang meeriyo wala isan baahada koonfur galbeed may ba aragnay intii naafada lan ka daneeyeen mandaasamayni dhiiri geliday intii iskuulkan balaawna weli waxaad dhageysanaysaan barnaamijka wadaagga Sooma oo Muqdisho idinkaga imaanaya ardaydii ku guuleysatay in ay ku baasaan imtixaanka dawladda ayaa ku biiray qaarkood jaamacadaha dalka halka kuwa kalena hadda ay isku diyaarinayaan horay in ay uga sii socdaan guusha waxbarasho oo ay ku haminayaan waxaa ka mid ah kuwa u diyaar garoobaya inay jaamacadaha ku biiraan hooyo Waris Axmed oo ku nool magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxay ka mid ahayd ardaydii u fariisay sanad dugsiyeedkii soo dhamaaday imtixaankii dawladda federaalka ah ay qaadaysay wariyaheena Mahad Abshir ayaa ka wareystay sida ay ugu dhiiratay in ay waxbarashadeeda dugsiga sare u soo dhamaado iyada oo 43 sano jir ah hooyadan warda soo dhaw goorma ayaad bilowday waxbarashada sanadkan ku soo dhamaatay walaalo waxbarashadeeda waxaan bilaaway 2010kii waxaan isoo gabagabowday dugsiga ilaa iyo dugsi saraada 2022 kan hadda qalin jabiyay ardayda qalin jabisa kamid ahaa alxamdulillah waan ku guuleystay
waxbarashadeeda daa kaaga sheekeyn waxaa kasoo bilaabay bareefada kasoo bilaabay waxaan ahaa hooyo markaas ilma haysto ilaa 3 ay joogtay marka wax akhriskii iyo aqabado badan arka kadib waxaa ku talagalay inaan wax barto waxbarashadii galay galin waxaa dhiganaya barqadiyo kale markaas alxamdulilah saa u waday waa fahmay ingiriiska fahmay oo si fiican ula qabsaday kadib haddana xaajigay u dheerigelay inaa sii wato aan ka caajisin markaas saasaan macad ku galay macadkii markaa galay alxamdulilah waxaan lagaga bilaabo markaas macadka ku beeray galaaskii 4 ardaydii iyo dadkii waaweynaa iyo inkastoo ilaleelayayaaba lidhaa maxaa waxbarasho helayaan iyo adaa ilmihiistida ku geliyay iyo anina warkaas iyo warka dadka dhagjalaq ma u siinaynin marka waxbarashadeeda halkaas ka soo bilaabay waayahay ma jireen caqabado kaa hor yimid intii aad dhiganaysay iskuulka dadka waxay dhihi jireen maxaa waxbarasho ku geeyay adoo qof weyn adoo hooyo ilmihiistida adaa kuwaana mashquul kugu filan aniga markaas waxaa dhihi jiray waxbarashada yaraan iyo weynaan male waxbarashadan aniga hamigay tahay inaan barto waan baranay dadka jalaq warkooda u siinaynin alxamdulilah haddana heer fiican waa ka taaganahay warda ma sii wadi doontaa waxbarashada oo ma ku biiri doontaa jaamacad aad rabtay inaad aqoontaada kusii horumariso insha allah waan jeclahay inaan jaamacad dhigto oo sii wato waxbarashadeeda alxamdulilah xaajigeygana waa igu dhiirigeliyaa mar walbo waan jeclahay inaan waxbarashadeeda sii wato heer jaamacad aan sii gaaro waa gartay kuliyadii ayaad doonaysaa inaad ku biirto walaal waxaan jeclahay inaan barto midwaafari laakiin maxaad ku dooratay kuliyadan midwaafari inaad ku biirto wardaay waxaan ku doortay midwaafariga inaan barto maadaama horta hubeennahay aad ayaa ugu baahanaanay haddana waxaa badatay inay qofkii oo caadi u foolo karo inay la qalamar dadka ku degdegaan qaliinka aad u badatay marka aniga waa jeclahay inaan barto si aan micnaha qaliinkaas badan loo kala yareeyo oo looga badbaadiyo dadka gabadhii foolo karto oo waxaa lahaa qaliin waa qaliin alqala alnaafeenayadii midwaafir inaan barto umulsanimo aad u jeclahay insha allah waa hagaag weli ma tagtay marka goob lagu barto caafimaadka oo wax ma ka qaadatay casharo ku saabsan waa galay alxamdulilah bareefadaa galay haddana waxaan qaatay gargaarka degdega inaan sii watan waa jeclahay hadda waa galay alxamdulilah gargaarka degdegana waa bartay waxbarashadan waxaan jeclahay insha allah heer kasta oo micnaha laga gaarina gaaro master xataa inaan soo diyaarsadaa jeclahay insha allah jaamacadana hadda inaan ku biiraa rabaa insha allah rajeynaa waaya ugu dambeyntii marka wardaay maxaad kula talinaysaa dadka kula midka ah ee isleh waad dhaaftay da-da waxbarashada ee ka haray waxaan ku dhiirigelinayaa dadkaas inay wax bartaan waxbarashada yaraan iyo weynaan midnimo leh waxbarashada waa wax fiican waxbarashada micnaha ka habsaamin isdheen waa weynaatay carabkaada cuslaada wax bari kartid inay wax bartaan marka waxaan dhihi lahaa haweenka inay guryaha iska fadhin wax bartaan daqiiqad walba kusoo barto inaa cilmi ka faa'iido waaye guryaha fadhina wax barta ilmihiina waxbarashada la aada bareefadada aada waa ina wax bartaa waxbarashada marka wax walba kuu fududaynay guryaha joogina wax barta hadda fursadu way bateen oo qadkii aad ka heli kartaa waayahay waa mahadsan tahay wardaay waana kaaga mahad celinaynaa sida aad noogu ogolaatay waraysigan inaan kaa qaadno intaas ayaan maantana kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wadaagga sooma waxaanse dhagaystayaal idinkaga tegayaa su-aasha ah dhagayste dadka waaweyn ee sida waris oo kale ah fursad waxbarasho ma ka heli karaan deegaanka aad joogto nala wadaag aragtidaada iyo su-aasha aad qabto adiga oo la soo xidhiiraya taleefannada idaacaddan mahadsanidin